hooyadu xafiican markuu yiraahdaba naaska lama siiyo naasku inuu waqti yeeshaa markuu yariyay مثلا aad u yariyay waxa laga yaabaa saacad labadii saacadood ba mar in naaska loo jiyo walo wax badan nuugi maayo waqtiga badanna waa la siiyaa markuu soo yaro koro naaska caanihiisu way isla bedelayaan ilaahay baa ugu tala galay wax laaliya waxa daasad siisan waa poison ma jirto daasad dhakhtareed oo ilma la siiyaa all of them waa poison hadda idin melihi waa wax lagu meel waa sun carruurta la siinayo laakiin shirkadka oo inay dhaqaale waxay leeyihiin rag u fudaydiya waxa kan ma ha war mustafa sheegayo khubaradooda caynka leh wax uga fiican naaska hooyo ma jiro ilmeed ilaahay naaskaasi uu siiyay ilmaha da'du joogo wuxuu u baahan yahay ilaahay ka soo daaya maalinta lagu bilaabayo waxayna dhahnaa waa dambarku waa maxay waa chemical loogu tala galay meelaan weligeed cunna marin buu marayaa inuu hagaajiyo safeeyo marka hore naasku waa biyo ilaahay baa ugu tala waxaynu cunnadaynu baraa Soomaalidu inta badan mooyay ma cunnaday la xajecla ka qabaano ayuu daadinin iyo waxa laga yaabaa gaalada ma aragteen kursi yar inta lagu xidhxidho ayaa midaan waxba cuni karin loo dhiibaa baleed yar iyo malqaad loo dhiibaa markaasuu halka ku daadi halka waxay rabaan inay hore u train gareeyaan dabeetana training-ka markuu ka baxo waxa laga yaabaa 2 jir maalintu gaadho ama 3 jir maalintu gaadho cunnadiisa isaga cuna innagana 4 jir islaan afka kaga guraysaa baad arkaysaa ama 5 jir soo fadhiso hooyo halkan waa si qaldan ilmuhu intuu yar yahay inuu u train gareynaa inuu barto al-i'timaad ala nafs qofku inuu isagu isku filan karaad rabtaa inaad barto dumarka inta badan yaqaan raggu ma yaqaan saxiga ma adu xumba tiraana waa kan naga kaajay guriga naga qabo marka hore xafaayad baa loo xidhaa waqti ma leh markuu doonana wuu kaajaa markuu doonana wuu saxaroodaa hadhow baashan lacag bay joogtaa waxaad rabtaa inaad ka furto islaantu markay ka furto waxa laga yaabaa usbuuca hore ama 3-4 shay ugu horeeya saacad bay u fadhiisaa saacad markuu joogaba beedmaankii baa la yiraahdaa tunjiga soo si fadhiiso markaas la qasbaa markaasuu kaaji waayaa markaasuu markaaja saacad kasta waa la ilaalinaya iyo guriga galina eega wata xafaayad ma sito waa la raacada xaafada dadka joogo dhamaysta xoolaha ka yar u ilaaliyaan cabaar marka la wado maalmo la dhunta marmarba kursiga kaga kaaja marmarba halkan waa loo dulqaataa waa la wadaa maalmaha dambe uu soo bataa 3 saacadoodba mar baa la wadaa maalmaha dambe inagu waa sabir daranna ilma markaynu iskuulka geynayno adigoo degdegsan dabeetana labada kabood adaa ku jufo idhaa warstaag xadhiga u xidha islaanta u xidhxidha haddaad kuwa gaalada ilmahooda aragto isagoo 3 jira waxa la baraa siduu dharkiisa u xidhan lahaa soo qaada ka ahaa badhinkaa xidh isagaa loo sheegaya u xidhanaya maalmaha hore نص ساعة بقاضنا سهينو درك حدا اللهم وفقنا لما تحب وترضاه وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ان وحد درسي كو سابسين سنان دونا هوري مكبلا ما ان شاء الله تعالى موضوع كو سابسين مسؤولية الوالدين تجاه الابناء أو إهمال التربية وحين دهنا بقى والدك وحدالي هي مسؤولياتك صارا مركي نقطة دشي يكورين تودا ومسألة إن بدن لقى الله بدن با أركتين ولادك والرمية عرورتي كوبعين تيدا عرورتي بربارين تيدا عرورتي haddana Soomaalida dibadda u soo baxday ku guuleysan kari weydii maxaa qaldan xagee wax iska qaban laayeen nusus badan la akhri xadiis badan la sheeg ayad badan oo quraan la tilmaam wasaa'il badan oo nabiga calayhi salaatu wasalaam ka soo sugnaatay la tilmaam welina maynan ku guuleysanin farsamadan inuu samayno ساشي سويدين تلا waxa weeyaan markaa xagee wax ka qalday ugu horeyn waa ognahay carruurtu inay hiba min Allah tay nicma ilaahay uu dadka ku galadaysto oo ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanka wuxuu ku tilmaamayaa yahabu liman yashaa'u inathan
ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير في سورة الشورى. إلهي وحولي عدو الدونا وحقوق الله دايستا هبله عدو الدونا وحقوق الله دايستا سيا ويلل عدو الدونا إلهي سبحانه وتعالى ويسوق الدرا عدو الدونا نوك قضية عدة لقى قضية باقران السن نعمة عرورتو انتاي لاكتي وحين وضع نقانا قفكا هوري وحودة لواية ورور بدنين كودع رقية دمربا إنو الراديو قاب كستو الله يراهدو وحبال لغو دالي كرا دي دوني دا دبادة دا دخاتير لغو شاقو يهديم التعويدات غرافة تحديثة لغو دالبا الله شاقو عيد والبا إن لو تاقو يدو لغا عبانا ايو مدانو اسقبني مدانو ودا جوغني عرور بانان هاينين waxaan rabnaa sidii aanu caruur u dhalahay waxaad ka garan kartaa ilaahay anbiyadiisii oo warwarkaasi hayo oo ilaahay baryaysa nabi ibraahim oo maxay leh rabbi habli min as-salihin wa nabi ilaahay doortay haddana ilaahay baryaya in kuwa saalixiinta wax laga siiyo waxaynu quraanka ku arkaynaa nabi zakariya leh rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibah innaka samii'ud du'aa. إذن وهمي بني آدم كو وداغو أنبياء الصالحين تاي ووينا إلى أي بشر دوني دا سومرا وتشعليين واحد الله لكن حيث ويدين تاله إلى هنا قرآن وإحنا قلت المامين النعمية المال والبنون زينة الحياة الدنيا عرورت يحوله با وأدونك قرح ديسا إلى هيكو تلمام كأنما قرح ذا لا أضحي أدي فقرك وقبطه كأنما قرح ذا لا أضحي هداد وحدالي ويدو دبتنا وحلا يدحولها يا عرورت بوحيين محي زينة ذا نلشة وحي كم دين شهوات نفس زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والحرث إلهي وحينات المامو والأنعام والحرث وحاصر من النعمة إنساك وحوشعلي ينيت إذا هو النعمة لكن نمعول به ومسؤولية دم كلامك لقاه نمعضو وفتن إن أدمهدنا قضية إن أدمهدنا قبل وإيجي مالك هو نعمة لكن حقك لنا وفتنة عرورت هو النعمة دمك لنا ومحي وامتحان وفتنة هذه مسؤولية دا سمرك إلهي سبحانه وتعالى وحلي يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة ومسؤولية مركا ومسؤولية إلهي انت بدن انت آن لينقل الدردار من عرورتو إنا ينوصم فشا والدك وحلق الدردار مي إنا يوصم فالك كوه الرئيان يوصيكم الله في أولادكم إلهي سبحانه وتعالى وحلي ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق عرورتين هودي لنا قاتشاك بغيسان ديلك ميدوا ديل كولا قاسيو ميدنا وديل أدبيو كسيدرا وقفك عقيدية دين لأنا أتبضه أضيعضه كفى بالمرء إثما حنبي قلت المام أن يضيع بمن يقود قفك بنادم كواحد دم يقف لنا وضيعه عدو وحسيني عدو كريني وأمانة آخر لين ويدينيه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأمانة آخر لين ويدينيه مع كل ذلك وينو كسو بحكري ويني حقاي وحكا حني waxaan leenahay ugu horeyn marka koowaad waa laba mid ima inay qiimeyntii uu mudnaa aynan siinin bini aadamku baanu qiimeynaa la lahayn
iyadoo asliyan la og yahay dunida waxa kor saaran waxa ugu qiimo badan leh qofka bini aadamka saa daraad bay dowladaha dunida nooli ee jira waxay isku dayeen inay daryeeli karaan aadanahooda wax bari karaan waayo qofka bini aadamka iyo kobcintiisa ka qiimo badan gantaalaha iyo dayuuradaha iyo kombiyuutarada iyo waa isaga sameeya ummadii ku guulaysan weyda inay dad soo saartaa kuma guulaysato hoggaanka bini aadamnimo walow lacag badanna ha haysatee day lacag wax tarayso dee muslimiinta maanta ayaa ka lacag badan khaliijka iyo meelaha kan tan dhulka laga qodo way soo dhuraan dhulka laga qodaa laakiin ma dhalin aadanihii loo baahnaa ma soo bixin waa layna gumaystaa ma aha in laynaga tiro badan yahay ma aha in laynaga xoolo badan yahay waxa weeyaan insaankii loo baahnaa baynu soo saari kari weynay quality qofka bini aadamka aynu u baahnayn insaankaynu qiimayn kari weynay walidaalka waxa laga yaabaa inuu aabuhu ama hooyadu ama dadku kaga mashquulaan ba lacag la xoojinayo lacagtu qiimo ma leh haddaad lacagta ugu badan uga tagto qiimo ma leh uu baabi'in haddaad qof qiimo la ka tagtana isagaa hantiya isagaa isku filan tujaarta lacagta badan dhaqda ee carruurta halmaamta adduunkoodu intuu ka dambeeya xataa adduunku intay dhimanayaan unbuu sii joogtaa hantidu markuu dhinto dadka ka taga aadane nooloo waxgaradina loogama baqayo inuu gaajoodo ama luma cameynkan inaad qofka dhistaaba ka muhiimsan maxay inaad hanti uga tagto idan waa inaynu marka hore fahmnaa qofka bini aadamka iyo qiimuhu inagu joogo haddaanu inan qiimihiisa garanin waqti iyo hanti iyo xoog ma gelinayno kobiciisa iyo barbaarintiisa wuxuu inala noqonayaa shay thanawiya shay secondarya shay aan mudnayn wax badane inaad 8 saacadood soo shaqaysaa inay ka mudan tahay inaad 8 saacadood ilmaha siiso kaasi waa mid qodobka labaad ee waxaynu wax soo saar u yeelan waayo waxa weeyaan waxaynan aqoonin sida wax loo rabeeyo ama sida wax loo kobciyo waliba inagu ka Soomaali ahaan bini aadamku waa cilmi dhan oo la barto ka cilmi ahaan waana fanni tadriib oo qofka aan theoretical qura loo barine lagu tababaro laakiin inagu ka Soomaali ahaan mushkiladda ay haysataa waxay tahay waxaynu u noolayn dad homogeneous group kama taqaanay bulshada aan fawaariqda lahayn waxba ku kala gedisnay dad isku midaba isku afa isku dhaqana isku diina ma ee diinta ka kale isku madhaba fiqiga madhab qura ka wada haysta waxay ku kala gedisayeen aanu jirin marka ilmaha kaliga adigu maad barbaarinayna waxa barbaarinaya maxay wadan dhan iyo dadka ku nool macallinka iskuulka dhiga isku wax aaminsanaydeen oo muslim aha oo caynkan aha ka dugsi quraanka dhiga isku wax aaminsanaydeen ka suuqa jooga isku wax aaminsanaydeen ka dukaanka haysta isku wax aaminsanaydeen ka jaarka atihiin ba isku wax aaminsanaydeen ilmuhu ku la ciyaaraya isku wax aaminsanaydeen marka aqliga Soomaaliga wuxuu ku soo urursanaa hal wax muxuu ku urursanaa ilmaha guyo gaajoonin bes aqliga Soomaaliga wuxuu ahaa ilmahaasi wuxuu cuno iyo wuxuu wado iyo wuxuu xidhayo waaye aabuhuna intaasoo ku maqnaa markuu soo xoojiyay islaantuna intaasay waday inay u kariso u maydho u hagaajiso u qubayso laakiin markaynu nimi dhul loolanka nololeed everything uu yahay wax kasta bini aadamku ku loolamayo mabaadi'da la rumaysan yahay caqaa'ida lagu dhaqmayo diinta la qaadanayo qaabka loo noolaanayo luqada lagu hadlayo sida loo fakarayo wax waliba loo langaleen waxaynu noqonay dadkii ugu horeeyay ee dumaha sida ogeed tarbiyada la sheegaya waxa weeyaan waa qof bini aadama kobcintii iyo barbaarintii maxaa la kobcinaya mawaahibta ilaahay siiyey adigu waxba ku dari maysid qofkan
ilaahay baa siiyey mawaahibtan laakiin waa loo barbaarinaya ininta geedkaa markaynu beerayno ininta ma waxbaynu ku daraa maya ininta waxa ku jira ayay waxaynu isku daynaa waxaan dabadda ka joogaa inaanu dhibin iyadana in la siiyo fursaddii ay ku bixi lahayd ininta dhulkaynu u faaqfaaqnaa dhirtaynu ka jarraa waa carra rognaa fertilizers baynu ugu darraa biyaynu ku waraabinaa meel cadceed laynu u dhignaa laakiin iyada waxba kuma darro insaanku waa sida ilaahay u abuuray isagaa khayrka iyo sharkaba aadi kara isagaa quwadka awoodahan oo dhammi ku xidhan yihiin laakiin waa ta la kobciyo kolba haddii la barbaariyana si fiican buu u barbaarayaa haddaan la barbaarinna khabta cashwaa'iya si kuday oo kuf oo kac oo kuday oo kuf oo kaca buu u barbaaraya barbaarintu waxay la mid tahay sida cunnada iyo dawada cunnada qofka biniaadamkii si isu dheeli tiran inuu u koro waxa la siiyaa maxay cunno isu dheeli tiran socankaa maaha cunno qura miyaa qofka la siiyaa waa loo badbedelaa si wixii uu baahnaayoo dhan uu heli karo soo si fiican u horo haddaad hal cunno qura siisa ka waran gaajada qofka waad ka beenaysaa berisumaad ka dhaamisaa habeen iyo maalinba maxaa soo baxaya yacni nolosha badh buu waayaya idan tarbiyadu waa sida wax qura qofka lama siiyo mawaahibta ku jiro oo dhan baynu rabnaa inaynu soo saarro caqli hadday tahay hadday ruux tahay hadday jasad tahay hadday wax walba tahay mawaahibtiisa oo dhan baynu rabnaa inaynu soo saarro inxiraafaadkana inaynu ka wada ilaalino dawada intee in leeg baa laysa siiyaa se nooc qura dadka loo wada quraa maya qofka xanuunka hayaa la eegaa dabeetana qof walba daawo gaaraa loo qoraa dawada loo qorayana dosage baa laga siiyaa waxaa la mida wax allaaliyo inxiraafka qallooca qofka gala ee laga dawaynayo o dhan baa la mida innagu qalloocoo dhan budh iyo dagaal baynu haysanaa wax kalaynu naqaanaa inankii waa yaro xumaaday baryahan waa loo taag waayey dagaal iyo huruf inaad ku bilowdo iyo inaad garaacdo wax kale miyaad u garanaysaa haddii uu maqli waayana waa inaynu ku sii badinaa uun markaa innaga dhibtayna haysataa waa labadan dhibood midi waxa weeyaan weli waxaynu u fikeraynaa sidiioo aad tolkaa iyo reerkaa iyo tuuladiinnii deganti ee meel rag isku haya inaad timiba ma rumaysinid midina waxa weeyaan marka horeba sida wax loo barbaariyo ayaa wax badani maxay inaga qaldanaayo insaan sidiisa u rabshadii ma jiro waa insaan aad fahmi weyday ilaahay wuxuu leeyahy laqad khalaqna alinsaana fi axsani taqwiim baa ilaahay qur-aanku yidhi aadanaha waxaan u abuuray sida u qumman baa loo abuuray fitrat allahi alatii fatara annaasa calayha laakiin walaqad karamna bani aadama ilaahay insaanka waa karaameeyey abuur fiican buu siiyey axsanu taqwiim buu ka dhigay laakiin alwasaa'il alkhaarijiya waxyaabaha dabadda kaga yimaada ama asfal saafiliin geeya ama maxay acla alcilliyiin qabadsiiya sawgeed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamaya maa min mawluud ilaa wa yuuladu cala alfitra abuurkiisu waa saxan yihi waa mid habaar qaba iyo waa mid inkaar qaba waxaas ma jiraan waa mid khayr qaba dhammaantood laakiin waxa dabadda kaga yimi ayaa ka dhigay ama mid shar badan ama mid khayr badan mid saxniin badan ama mid qalad badan mid si fiican u fakeraya ama mid si xun u fakeraya mid mu'mina ama mid gaala saa daraaddeed buu nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam qof waliba isagoo quman buu dhashaa ee labada waalid waa environmentka ugu khatarsan ee aadanuhu uu ku soo koro ee koowaad labada waalid buu nebigu leeyahy lama odhanin bii'ada dabadda waxaa la horumariyey maxay labada waalid baa ka dhiga buu nebigu yidhi yahuudi ama nasraani ama majuusi sida xooluhuba ay u dhashaan iyagoo aan dhukanayn
dhagahooda wada qaba laakiin bini aadamkaa jarjara xoolaha marka dambe dhagaha qaarna u yaryareeya qaarna dacala u yeela qaarna fur u yeela qaarba si u gala sida xooluhu iyagoo dhagahooda qaba u wada dhashaan buu bini aadamku isagoo qumman u dhashaa laakiin dhagaha cidda googoyse sida tan u gashaa waa aadanaha buu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam qur-aankana ilaahay wuxuu leeyahy wallahu akhrajakum min butuuni ummahaatikum laa taclamuuna shaya alculumaat alxisiya tajaaribta culumta laga kasbado idinku aan waxba ka aqoon ayaa hooyadiin idin dhashaa buu nebigu yidhaa ayuu qur-aanku leeyahy wajacala lakum alsamca walabsaara walafidata lacallakum tashkuruun ilaahay markaa wuxuu idin yeelay wasaa'ishii aqoonta lagu kasbanayay ee maqal leh ee arag leh ee quluub leh lacallakum tashkuruun ay kay tashkuru sida rabbigiin ugu mahad celisaan laakiin haddii kuwa si qaldan loo adeegsadana insaanku wuu lumaya haddii si saxa loo adeegsadana wuu lumaya walidalik bay culamadu waxay dhahdaan ibnulqayim raxmatullahi calayhi baa wuxuu leeyahy ida ictabarta alfasaada fi lawlaad ra'ayta caamatahu min qibali alaabaa buu yidhi haddaad aragta buu yidhi ilmo xumaaday inta ugu badan buu leeyahay xumuhu waalidiintu ka yimi inta ugu badan xumuhu waalidku ka yimi haddaba ilmuhu meelahan aad joogtaan markuu yimi taxadiyaad baa yaalla challenges iyo casrigan cusub ee la nool yahay challenges aad u tiro badan oo ah xumo dhammaantii oo la faafinayo tv leh internet leh video leh mobile leh waxa la hayoo dhan leh schooling systems leh manaahij loogu talagalay oo aanad adigu dhiganin leh jaar iyo xaafad dhaqan kala wata leh wax badan buu la kulmayaa ilmuhu waxa uu la kulmayoo dhanna ma haysto tatciimka soo ma taqaaniin vaccinationku tallaal qofka tegaya meel khatara mathalan meel tibaydu ku badan tahay haddaad tegayso ama yellow fafa ku badan yihi ama habitat ku badan yihi qofka ka shaqaynaya waxaa la yidhaahdaa ha la tallaalo si markuu bii'adaa dhex tago ximaayadiisa difaaciisa jireed uu u xoogsanaado insaanku wuxuu u baahan yahay mawaahibta iyo waxa wanaagsan uu leeyana in la barbaariyo waxa xunna in laga tallaalo waxa xunna in laga tallaalo laakiin haddaanu waalidkuba aqoon sida wax loo tallaalo haddaanu aqoonin sida loo kobciyo qofku awoodaha alla siiyey ilmuhu suu ku guulaysanayaa markaa axad alculamaa cusurtan noola ka mid ah culamaa'i tarbiya nimanka ku takhasusay doctor ibrahim alkhalayfi ayaa wuxuu yidhaahdaa casrigan waxaynu u baahanay buu leeyahy rukhsa qiyaadat lwaalidayn in la bixiya buu yidhi liisanka waalidnimo in qofka la siiya buu yidhi inta aanu guri gelin wa ilaa buu leeyahay isna wuu jabayaa carruurtuna way jabaysaa liisanka waalidnimo waa maxay waddannadan muslimiinta indha yartaa waddan ka mid ah ayaa wuxuu batay furitaanka aroos baa la dhigaya wuunbaa la isfuraya aroos baa la dhigaya dadkii furistii dowladdii waxay tidhi see wuxu jiraan dowladdu daraase markay sameeyeen waxay idhaahdeen dadku iyagoo aan la barin guurka iyo waxa ka ratibmaya iyagoo moodaya meeshu sags inay tahay in la tunto wiilka iyo gabadhu inay tumanayaan iyagoo moodaya ayay guri galaan dabeetana maadaama aqoon darradaasi ay jirto wada noolaanshiyahooda cidhiidhi noqda waayo laba qof laba guriyoo kala dhaqana kala kaljara kala nooca qaab looga kala noolabay ka yimaadaan inta badan markaa waxaa kaleesh ka dhex dhacaa bay idhaahdeen labadan qofa isu yimi furitaanka ugu badan le bay idhaahdaan 6 bilooda ugu horreeya ama sanadka ugu horreeyuu dhacaa maxaa xalabay dowladdu isweydiisay waxay dowladdu garatay markaa waxaynu samaynaynaa in course la siiyo qof kasta oo guursanaya
qofkii koroskaa soo qaata ee shahaadadaa qaata dowladdu waxay ugu deeqaysaa arooska waxa ku baxa lama odhanin qasab lagu meherin maayo laakiin waxa weeyaan heli maysid macuunadii dowladda oo ah in guriga iyo wixii kaaga baxayo dhan kharashka in lagu siiyo heli maysid haddii aanad qaadanin maxay koroskan inaad soo qaadan koroska marka lagu dhigo liisan baa lagu siinaya sheegaya inaad u cuntanto inaad guursato waa shahaada soo shahaado jaamacadka kama qaadataan ama shahaado darawalnimo sooma soo qaadatid liisan sheegaya inaad gawaadhida kaxayn karto waa liisan sheegaya inaad reer wadi karto inaad reer noqon kartaan ayaa lagu soo siinaya liisankii marka uu qofku qaato dadku marka hore inta badan le uma galaan cilmiga aad baratid ee wuxuu u galaaday inuu helo $50,000 ama $60,000 ee dowladdu ay guriga qalabka yaaliyo wax oo dhan ku dhigayso marka qof waliba si uu guriga u helo koroska bisha abuu soo qaadanaya koroskii markay soo qaateen si automatic ba furitaankii hoos ugu dhacay wadankii waxay dowladdu ku guulaysatay marka inay yarayso furistii hoos u dhacaysay waxa soo baxday inay waxaan aqoon darro inteeda badani keensanaysay wax laga maarmi kari lahaa haddii dadka la baro inuu guulaysto ninkan khabiirkan muslimkii wuxuu leeyahay sida gaadhiga loogu qaato buu leeyahay darawalka liisanka loogu qaato baynu u baahanay in ilmaha kasta ee guursanaya ama qoys kasta oo wax dhigay qoysnimo samaynaya rag iyo dumarba in la siiyo liisanka waalidnimo buu leeyahay wa ilaa haddaanu liisankaa qaadanin buu leeyahay isna wuu dhib mudanaya ilan waxaanu garanayn buu wadaaye ilmuhuna wuu ku dhib mudanaya ilmuhuna mushkilad baa haysata waalidkuna isna waa xiiqsan iyo juhdi iyo awood iyo xoog uma baqanin wuxuun bay la mid tahay buu leeyahay nimaan darawal noqon oo la yidhi gaadhigaa kaxee isna waa dhib mudanaya dee maalinba dar buu jiidhaya maalinba shil buu gelaya dadka kalena khatar buu gelinaya ilmahan aad dhalaysa haddaan la tarbiyaynanin dadka kalena khatar bay gelinayaan adna khatar bay ku gelinayaan naftoodana khatar bay gelinayaan intaba khatar bay ku jiraan ilaahay asliyan wuxuu ina leeyahay wanafsin wamaa sawaaha faalhamaha fujuraha wataqwaaha qad aflaxa man zakaaha waqad khaaba man dasaaha ilaahay wuxuu tilmaamayaa naftan alhamaha fujuraha wataqwaaha inuu simay oo si fiican loo abuuray laakiin dariiqa xunna inay qaadi karto haddii loo tareengareeyo dariiqa sanna inay qaadi karto haddii loo tareengareeyo saa awgeed baa ilahay wuxuu yihi qad aflaxa man zakaaha waxaa liibaanay cidda kalimatu zakaa fi lluga altahiir walnamaa labadaba waa la yidhahdaa zakaadu xoolahana way barakaysaa waanay tahirtaa naftaada bukhliga iyo qurunka iyo xaasidnimaday kaa tahiraysaa xoolahana waa kuu barakaynaysaa ilaahay wuxuu leeyahay nafta qofkii zakeeya qofka zakeeya waxa weeyaan xumihiisiina qofkii iska dhilay korna u baxay ee koray waqad khaaba man dasaha kii xabaalayna idan waa farsamo waxaan u socdoo dhammi waa maxay waa inaan idhaahdo laba shay baynu u baahannay mid waxa weeyaan bini aadamka iyo qiimihiisa inaynu garanno waddanka maanta jabaan la yidhaahdaa waxay idhahdaan waa no resource waa wadannada aan resource lahayn macaadin iyo waxba toona ma laha haddana waa waddanka labaad ama saddexaad dhaqaalaha dunida xagu ka yimi human resource buu leeyahay bay leeyihin dowladda iyo bulshadu waxay maalgelisay qofka jabaniiska ah si uu dhaqaalo u dhalo dabeetana waxay awoodeen waxay idhahdaan maraakiibtoodu birta intay soo raraan ayaa bisha uu markabku dhexda kusii jira baa factoryguna saaran yahay dabeetana hadhow markuu dekada ku xidho iyadoo stainless steel buu rogaa markii horena iyadoo khaam la soo saaray markabka marka laga rogayana iyadoo stainless steel baa laga rogaa yani qofka bini aadamkaabay maal gashadeen dowladaha horu maray la sheegayaa GPD-ga waddanka boqolkiiba intaa ayay say u kala xoog badan yihiin u kala maalgeliyaan dadkooda sidii loo tababari lahaa weliba laba shay baa kala jira culumta marna theoretical baa loo qaataa jaamacaadkan iyo meelaha kan theory badan baa lagu soo qaataa waxna waxa la yidhahdaa waa funuun tarbawiya
وفنون علمي يقعن تعالى قاب مركا شقادة بلابيسو لما يدان نكني شهادة سروسي تاي شقادها بلابو عندنا شقة قوة درت ولي قاب شهادة سيدو شهادة وحي شيء ساينا هرا وحب برن كرتيد وحي لقى ربينا براتو سادر هذا بالشركة دو تريننج بيكو جالينيس انجينير بات انجينير كلا لو دريا بالله بابا دبس عنس هذا هو وحنا ودن تيوريكال سو قاطي براكتيكالي سو سمي ايان هذنا الشركة دو كامينين inay practically ku maraysan mooyaane dabeetana assistant waa laga dhigay kan baa muddo markaad khibradii loo baahnaa aad hesho khibradu waa maxay waxa weeyaan inaad xasuusan karto meel kasta waxay u baahan tahay instantaneously theoretically ma wada xasuusan kartid laakiin waxaan markaad tajriba ku celiso instant kasta wixii uu baahan yahay xaafid baad markaa noqonaysaa tarbiyaduna waa saas oo kale علمي ثيوري قرا لغو قاتا ماها انت ميلا فريستا لا يسو شيغا قرا ماها وا علمي لا اسكو تبابرو oo qofka training laga saaro ilaa iyo uu gaaro xadkii uu waxa kan sameyn lahaa haddaba markaynu cilmiga kobcinta ka warayno ka cilmi ahaan usus caqiideed buu leeyahay oo caqiido ku salaysan oo ah nolosha maxaad ka aaminsantahay dunida maxaad ka aaminsantahay qofka bini'aadamka maxaad ka aaminsantahay masiirka aadanuhu uu noqonayo maxaad ka aaminsantay waxa soo dhami waxay hogaamiyaan waxa lagu barayaa wuxuu noqonayo cid kasta oo cid kaga gadisan arrimahaasi qaabkay dadkooda u tababaraan ee u kobciyaan way ka gadisantay dadka kale that's why cid waliba ay u leedahay manahij tacliimiyo u gaaro dhaqankoodii iyo culture-koodii iyo afkaartoodii iyo caqaa'idooda ku salaysan Soomaalida waxay u haystaan cilmigu inuu cilmi la barto yahay maaha cilmi waliba aqli iyo ra'yi iyo fikrad ba ka dambaysa wuxuu kaloo leeyahay usus ijtimaaciya oo ku salaysan bulshadu maxay u baahantay qofkuna muxuu u baahan yahay baahida bini'aadamka la qiimeeyaa cid aan rumaysnayn inay aakhira jirto baahida bini'aadamka uma jirto waxa aakhira la yiraahdo ku xisaabtankeedu عدة سر رميسان محا ugu jira aakhira wax la yiraahdo ku xisaabtankeeda ugu jira cid aan ruux bar rumaysan bini'aadamku inuu ruux leeyahay inuu Allah la xiriiro toona ugu ma jirto ususka tarbawiga waxyaabaha ruuxda koobiya cid sir rumaysan ugu jira marka xaajaadka qofka way ku xidhantay waxay kala ku xidhantay bini'aadamka maxaa laga rabaa mesela dawladii Romaniska la oran jiray waxay rumaysnaayeen ninka Romanka in jir ahaan qofka la dhiso qof xooga oo wax iska celin kara la soo saaro askar dabeetana tarbiyada la mariyo dadkoo dhami waxay u badnay tarbiyo muruqa ku salaysan Greekii hore waxay rumaysnaayeen falsafad iyo aqligu inuu yahay meesha dadka lagu hogaamiyo marka waxay rumaysnaayeen ususka tarbawiga wadankoo dhami inuu ku salaysanaado usus aqliya qofka maankiisa sida kor loogu qaado mesela kristankii hore waxay rumaysnaayeen jidhka iyo waxaan inay dhib yihiin qofka ruuxdiisa in la koriyo iyaga iyo hindidii hore iyo marka waxa la oran jiray qofka jidhkiisaba weyn la ciqaaba si ruuxda ay u korto oo raahibinta qaar baa la oran jiray ninka kani si halku ka gaadhay ruux korinta 50 sanadood dambiga waji dhaqa la yiraahdo muu gelin waji dhaqa dambiga biyaba inuu ismarin yani waa qof bahaloobay 50 sano biyo ismarin dambiga waji dhaqa aanu 50 sano gelin si uu ruuxda u barbaariyo inaga Soomaalida hore reer baadiya mesela waxay rumaysnaayeen ninnimada iyo raganimadu inay tahay qofku inuu adkaado saasi daraadeed geeljiranimadu ammaan bay ahayd ninka geeljiraa waxa loo rabaynayay qof raadka u adkaysta oo dagaalka u adkaysta oo geeldhaca u adkaysta oo dhib u adkaysta waxa soo dhan saa daraadeed ilmuhu markuu 18 gaadhaba geela lagu daraa ka yar bay geeljiruhu wax walba ku raraan isaga haruubka sida oo gudinta sida oo maqaarka sida oo xoolaha raacaya waxa laaliyo waxay xoolaha haystaan ama qalab sitaan ka ugu yar ba sida waxa soo dhan isagoo xambaarsan oo maanta dhan daalana xoolaha raacaya mid yar oo leega ka soo horbaxaya inta ba dhigay oranayaan oo la ulinta loo dhiibo haduu ooyo waa la dilayaa haduu intuu ultamo ooyo ama laga badiyo kii weynaaye wada dilayo oranaya nacasku dhaleen rag iska celinay waayo culture kan baa wuxuu ku salaysnaa qof adag in la soo saaro oo abaarta iyo dagaalka iyo wax walba u adkaysanaya oo aan ibnu hunduul ahayn
yeelabaystay nimaan ahayn inuu soo baxo ragi idan waxaan uga jeedaa bulshadu baahideeday ku salaysaa maxay qofka sida loo rabaynayo muxuu noqonayaa berrito waxaa jira usus nafsiyo qofka lagu rabeeyo oo ah muxuu qofku qaadi karaa dadkoo dham isku wada mid ma aha qof baa cilmiga ku fiicnaan kara qof baa farsamada ku fiican qof baa farshaxanimo ku fiican qof baa adab ku fiican ma aha un dadkoo dhami dhakhtar wada noqda inaad tidhaahdo qof baa dhiigaba markuu arko ma taga dadka badhba hadduu dhiig arko ma tagaya haddaad tidhaa kaa dhakhtar noqo wax qalsay u suurtoobaysaa yacni waa inaad garataa ilmahaad dhashay fawaariqda fardiga u dhaxaysa muxuu baran karaa maxaase aanu baran karin waa inaad garan kartaa alxaajaat nafsiya aadanuhu muxuu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay kow intimaa inuu cid ka tiirsanaado qofku kelima noqon karo wuxuu u baahan yahay ihbaatu daat qofku daatadiisa inuu sugo qof nooloo la garanayo gaar u taagan inuu noqdo wuxuu u baahan yahay qofku inuu xorriyad helo wuxuu u baahan yahay qofku waxuu ku farxo oo naftiisa farax galiya inuu helo wuxuu u baahan yahay qofku inuu muntabit noqdo qaanuunka inuu raaco xorriya mutlaqa ma jirto systemka inuu hoggaansanaado haddaba waxaas oo dhan aan ka warramay aadanaha sidee loo baraa hal daris kagama hadli karno waxaan leeyahay waxaasoo dhami waa mas-uuliyadda koowaad ee waalidka labada qof ee wax dhalay mas-uuliyaddooda koowaad weeyaan bulshada saddex qaybood baa wax rabeeya waa waalidka iyo mujtamaca iyo dowladda dowladdu dowladuhu waxay jecel yihiin waxay dadkay u taliyaan inay homogeneous group noqdaan waxay kaloo jecel yihiin casrigan dambe multicultural inuu noqdo laakiin dadka in kasta oo laysu ekaysiyo ay dhaqan iyo af iyo diin iyo wax wadaagaan ninka siyaasiga maamulka u hawl yaraanaya marka bulshada si la isugu daro dowladdu saddex shay bay adeegsataa dowladdu waxay adeegsataa nidaamka wasaaradda waxbarashada 10 sannadood ee hore cilmi maaha laakiin waxa weeyaan waa isdhexgalka dadka 10 sannadood ee qofka lagu baro saadaradeed ba dowladaha inta ugu badani waxay qaateen compulsory education 10 sannadood oo hore ama 9 sannadood oo hore waa qasab qof waliba waa inuu iskuul dhigtaa maxaa la rabaa dadkoo dhammi inay culimo noqdaan maya waxa la rabaa dadkoo dhammi inay isfahmi karaan dhaqan iyo af in loo sameeyo dadku uu ka midaysan yahay value ay ixtiraamaan qaabka loo wada noolaado dadka waa la isbarayaa kaasi waa kow shayga labaad ee ummadda lagu hagaa waa iclaamka tv raadiyo jariidad waxaan oo dhammina bulshada wuu hagaa dadka koox gaarunbaa wuxu sheegtaa ilaa xad imika la marinayo cunada waxaad cuni lahayd xataa meesha la isaga sheegaa soo kicha kama soo baxdo gelinka hore wax la kariyo haddaad kaa ku darto ugu dhanaanaya haddaad kaa ku darto macaan xataa dhadhankaa la rabaa in lagu sameeyo dadku isku dhadhan noqdo oo dhan loo wada socdo qaybta saddexaadna waa qaanuunka intaa wixii soo dhaafa sharciga lagu hogaaminaya waxaa haddaad samayn weydo xadhig ganaax waa iyana in laysku kiindhilo intii intaa soo dhaafta waddadaa la wada mariyo kaa dowladda ka mas-uula midna bulshadaa leh waa ururada kilaabada hibdheelada meelaha laga tunta waxa kan muslimiinta halkaa waxa ugu jirta maxay naadiyadooda iyo meelaha isugu yimaadaan iyo masaajidda midina waa guriga haddaba 6 sannadood ee ugu horeeya crucialka ah waalidka mas-uuliyadda ugu weyn ay saarantay waalidka mas-uuliyadda ugu weyn ay saarantay 6 ku xiga iskuulka iyo masaajidka mas-uuliyadda ugu weyn ay saarantay teenager markuu soo gaadho soo dhaafay intaa bulsho weynta iyo miidiyaha iyo waxa uu maqlayaa waxa ugu badani uu ka qaataa 6 ugu horeeya sannadood ee crucialka ah waa 6 aanu ilmuhu ka maarmin hooyo gaara inuu helo hooyada in lala wadaaga ma fiicna bay dhahdaan walidaalka waxay dhahdaan ilmaha meelaha la hayo lagu koriyo iyo ilmaha hooyada gaarkii leedahay isku si uma koraan waa tajaarib badan ay sameeyeen
ilmuhu maxaynu baraa 60 sano ugu horeeya waxaan leenahay ilmaha wax lagu baraa طريقooyin badan المحاكاة والتقليد الضبط والتعويد الاستمرارية كدب انت أصدقاً ولا اسكدر القدوة الحسنة كدب أي قضايا كلا بالأمان حنقول وجه ده تصالح مركن كسية وحبات فهمي دوتها مثلا المهو حوبة هي إنه بره inuu kaadida iyo saxarada meel gaar la tago marka hore inuu dhallo ma yaqaano kaadiya saxaradu inay waqti leeyihiin iyo in meel gaar la tago toona ma yaqaan soo samaha xafaayad baynu isaga xidhnaa bambaro aynu rabno inuu ilaaliyaan waqti ma leeyahay dhawi bambarkaasi markay hooyadu ka furayso maxay samaysaa dumarka inta badan yaqaan raggu ma yaqaan saxiga ma adu wuxuu baatay waa kan naga kaajay guriga naga qabo marka hore xafaayad baa loo xidhaa waqti ma leh markuu doonana wuu kaajaa markuu doonana wuu saxaroodaa hadhow baashan lacag bay joogtaa waxaad rabtaa inaad ka furto islaantu markay ka furto waxa laga yaabaa usbuuca hore ama 3-4 cashay ugu horeeya saacad bay u fadhiso saacad markuu joogaba me baydhmaankii baa la yidhaha tunjiga soo si fadhiso markaasaa la qasbaa markaasuu kaaji waayaa markaasuu markaajaa saacad kasta waa la ilaalinaya iyuu guriga gelina eega wata xafaayad ma sito waa la raacada xaafadda dadka joogo dhammi sida xoolahay kaa yar u ilaaliyaan cabaar marka la wado maalmuu la dhuuntaa marmarbuu kursiga kaga kaajaa marmarbuu halkan waa loo dulqaataa waa la wadaa maalmaha dambe wuu soo bataa 3 saacadoodba mar baa la wadaa maalmaha dambe wuxuu bartaa in waqti la kaaja ay jirto laakiin waa caruura wali lama qabsan wuu ilaabaa markay ka daadanayso ku oranaya kaada heesa kaada orad musqusha galo maalmaha ku xigtana meeshu ku sii kaaja maradu iskaga sii kaaja waayo wali maskaxdiisu lama ay qabsanin last minute inuu ku sheego akhiran sida ugu wadno waxaan gaarsiinaa 10 casho dhowr iyo 10 casho ugu badnaan bil markaynu wadno wuxuu bartaa in waqti la kaaja jirto meel lagu kaajo gaar ay jirto guriga intiisa kalena lagu kaajo inta ma wacdaynu ugu sheegnaa mise farsamaynu ku baraa ka warranta inta ka yarna dhaan wariya dhageyso guriga lagu ma kaajo halkan guri baa la yiraahdaa xaqaana musqul baa la yiraahdaa miyaysaasi soconaysaa waa qosashee nolosho dhami markaa tarbiya hadaad maqasho waa tacwiid waa qof la train gareeyay qofkan waxa loo train gareynayaa inuu maxay sida noqdo ka soo qabo ilmaha waxaynu baraa markaa xaajadiisa inuu guto waynu ku train gareynaa waxaynu ku train gareynaa cunnada hooyadu waxa fiican markuu yidhaahdaba naaska lama siiyo naasku waa inuu waqti yeeshaa markuu yariyay maalan aad u yariyay waxa laga yaabaa saacad 2 saacadoodba mar in naaska la ruujiyo walo wax badan nuugi maayo waqtiga badanna waa la siiyaa markuu soo yaro koro naaska caanihiisu way isla bedelayaan ilaahay baa ugu tala galay wax laaliya waxa daasad siisan waa poison ma jirto daasad dhakhtareed oo ilma la siiyaa all of them waa poison hadda idin melihi waa wax lagu meel waa sun carruurta la siinayo laakiin shirkadka oo inay dhaqaale waxay leeyihiin rag u fudaydiya waxa kan ma hawar mustafa sheegayo khubaradooda caynka leh wax uga fiican naaska hooyo ma jiro ilmeed ilaahay naaskaasi uu siiyay ilmaha da'du joogo wuxuu u baahan yahay ilaahay ka soo daaya maalinta lagu bilaabayo waxaynu dhahnaa waa dambarku waa maxay waa chemical loogu tala galay meelaan weligeed cunna marin buu marayaa inuu hagaajiyo safeeyo marka hore naasku waa biyo ilaahay baa ugu tala galay ilaahay marka dambe laga gurinayana waa caana adag waa dhaqayo gala ragi maali jiray dhaqayo geeliyo ma isku mid ah marka bilowga yahay dambarka laga maalayo isku nooc maaha inta u dhaxaysa caanu way isbedelaan markasta chemicalada nooc baa ku badan vitaminada nooc baa ku badan proteiniska jaad baa ku badan ku xidhan da'da ilmahan iyo siduu u korayo okay ilmaha naaska marka loo bilaabo ayar baa loo siiyaa markuu korona
وين الضبط قبرتها مركو إلى هذا بين السيمها هدو إلى لقى قاعد يوم مركل لقى دينيو ساعده ويكران وحين عنده إنه براه سومالدو أنت بدن موي مع عنده اللي حكى على كقبانا يو دادين نية وحصل غيابه قال هذا مرتين كرسير أنت لقوا حد أيام إذا وحباب عوني كارين لوديبا بلير يري يوم الغاد لوديبا مراتو هالك كود دادي هالك كذا waxay rabaan inay hore u train gareeyaan dibadna training ka markuu ka baxo waxa laga yaabaa 2 jir maalintu gaadho ama 3 jir maalintu gaadho cunadiisa isaga cuna innagana 4 jir islaan afka kaga guraysaa baad arkaysaa ama 5 jir soo fadhiso way halkan waa si qaldan ilmuhu intuu yar yahay inuu u train gareynaa inuu barto al-i'timaad ala nafs qofku inuu isagu isku filan karaad rabtaa inaad barto sidoo isugu filaanayana maalin ba shay ba trainingkiisa bilaabaysaa haddaad kaadi ka deynta maalin bilowday waxaad bilaabaysaa cunadana inuu isagu barto sida loo cuno maalmaha hore malqacadu kolba dhanbay afka ka maraysaa halka uu isku daadinaya iminka miya gacantaadii afkaaga soo daydayda may wala train gareey trainingkii markuu ka batay ayaa haddaad indhaha isku hasiyo haddaad afka lahaysatona mirna miyaad la waayaysaa laakiin ilmuhu markuu yari uu la waayaa trainingka markuu muddo wado الاعتماد على نفسه ببرطة إنه وصبر ضرنا المهم مركز نسقول كجيني إنه هذي قد دكسن دبتنا لبعض كواد هذا كتشوف فايد هبرستك حرق وحدة إسلام توحد حدة هذا تقول قال هذا علم هو دركته سوى السدح جرا وحلا براه سيدو دركي سوى حدن لها سوق هذا كها بعدين كاحد سجل له شيء جيا وحدنا يا مال ما هو نص ساعة بقاضنا سهين ودرك حدة meeshan yar ay geeyaan habarta joogta ka furi mayso waxaan halka istaag fur kaba horta iska bixi oo bixinaya halkaas isaga saaraya sharaba halkan sa kan bixi halkan sa waxa la baraya qofka kan inuu ismaamuli karo wala caawin karo laha markiiba daqiiqad lagu caawiyo sameyn karo laakiin waxa loo train gareynaya maxay inuu barto afka yimi binaadamku sidoo afka ku bartaa suuq barta marka hore uu dhageystaa suu dhageysanayo codku bartaa dabeetana wuxuu ugu hor bartaa codka hooyadii iyo kaabihii hadday hadlaan wuu eegayaa isagoo waxay ku hadlayaan aan fahmaynin guriga haddii 5 qof joogto oo ilmo halkan saaran hooyadii hadasho iyadu eegayaa codkeedu ka bartay codadka kale kadib asmaadu bartaa inta badan iyo eray yar oo isticmaalo jumla ma barto caano ayuu leeyahay markuu caano doonayo caano isima wada oran karo biyo waxa laga yaabaa waxa la cabo dhan inuu biyo u barto in la yiraahdo ama waxa la cabo dhan inuu caano u barto eraygu ku soo horeeyo maalin bay eray buu bartaa kadib wuxuu bilaabaa hadal laakiin hadalka makharij al-huruf ma yaqaano meesha erayga laga soo saaro xarafkan meesha laga soo saaro ma yaqaano wuxuu ku hadlaa erayada oo jajaban reerkoodun baa fahma markaa aynkaas uu leeyahay hooyadii waa kaaga tarjumaysa hebel buu yeedhaya waxaan buu sheegaya waxa ay siiyuu leeyahay siiya dadka kale ma fahmin waxa uu sheegayo waayo makharijtii baa lunsan wali laakiin siduu tijaabinayo makharijta bartaa dabeetana eray buu u bartaa kadib buu bartaa laba eray in la isku xidho kadib buu bartaa jumlad in la sameyn karo kadib buu bartaa hadalka in la xasuusan karo kadib buu bartaa inuu ku fikiri karo kadib buu bartaa inuu maxay waxay yiraahdaan 2 jir meelaha markuu marayo ilaa 2500 oo eray buu baran karaa 3 jir 4 jir tira loo hayaa qofkaasi markuu da'da marayaba inuu inta soo eray haddaanu inta garanaynin waxa la yiraahdaa waalidku may train garaynin qofkan waxa la rabaa markuu hadalka baranayo inaynan ku qoslin ama ka tumanin inaynu isku dayno inaynu u saxno eray cusub inaynu barro jumlad inaynu barro afafku luqadu waa waxyaabaha ugu weyn ee qofka bini'aadamka nicmo ee Ilaahay siiyay aadanahana waa wixii Ilaahay ku karaameeyay nabi aadam maxaa lagu karaameeyay wa 'allama aadama asmaa kullaha intu malaa'ikta kaga mudnaaday maxay ahayd tanbay luqadu waxay yiraahdaan waa nicmooyinka ugu waaweyn ee bini'aadam Ilaahay siiyay
waxaad qiyaastaa qof bini aadama oo aflo oo dhagaala qiyaas wuxuu dareemayaan kuu sheegi karin waxaad adigu dareemaysaa aanad u sheegi karin waxbaba luqadu waa akbar nicma saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu inoogu mana sheegtay الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان با إلهي علمه البيان عضينت إلهي بري التعبير عما في النفس لغضه وحي كمت آيات كإلهي لغو قرط ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين با إلهي لغضه وتواصلك وواحد بني آدم كو حريره waxaad doonayso waxaad ku sheegi karto waxaad ka fikirayso waxaad ku sheegi karto waa waxa la isku fahmo luqadu waa waxa sida dhaqanka iyo aqeedada iyo afkaarta umadi leedahay luqadu waa qiimo fanniya waa mutca fanniya bay leedahay adabkeedu afka hooye bay yidhaahdaan waa afka guriga laga barto markaas si aan macallin ku barin waa afka bay yidhaahdeen dhaxalka umadileeday sida waa afka sida baa la yidhaha hiddaha dadku leeyahay waa baadi soocda ama waa sumadda dad leeyahay sida awgeed ummadda afkeeda weydaa dhaqankeedii iyo dadnimadeedii way weyday soomaaligu waa maxay soomaaliga ma waxaa moodaysaa inuu qabiil yahay maaha soomaaliga identitygiisa huwiyadiisa ugu weyna lagu yaqaanaa waa afka soomaaliyeed maalintuu afka soomaaliyeed ilmuhu waayo ma aha soomaali wuu ka baxay ilmuhu hadduu af soomaali waayo maxaa diintiisa lagu barayaa qofna af kale kuma dhergo dunida waxay yidhahdaan maanta aynu ku noollay dad bini aadamku soo afafka u qiimeeyo waxay yidhahdaan 500 ee jaamacadood ee dunida ugu qiimaha badan leh oo 35 waddan oo dunida ka mida ku yaala jaamacad kasta afkeeday ku dhigtaa 19 waddan ee dunida technology-ga hogaamiya waddan waliba afkiisu ku dhigaa saa awgeed waxaa la yidhahdaa af cilmi ma jiree dad kale baa afkooda cilmi ka dhiga inagu se waxaynu moodnay ingiriisiguna inuu cilmi yahay af soomaaliguna uu jahliyey jahligu waa inaga maaha af soomaaliga jahligu waa inaga moodnay markaynu afkeenna luminay inay wax fiican tahay wax fiican maaha waa dhaqan xumo halkii u dambaysay waa caqli liidasho halka ugu dambaysa inaynu afka luminaa soomaali ilmahaagu noqon maayo haddaanu afka aqoonin diin fiicanna baran maayo haddaanu afqoonin naadir mooyaane waayo af kale qofku kuma dhergo mahma aan af ingiriisi iyo carabi garanayo waxaan doonayo kuma sheegi karo soomaali baan waxaan doonayo ku sheegi karaa ilmaha soomaaliyeed baan waxa madaxayga ka guuxaya u tallaabin karaa laakiin afafka aan akhriyo uma gudbin karo ilmaha ku kobca waxaan dareemayo dhan idan haddaad ilmaha afka ka lumisaan in badanoo ka mida dhaqankiina waa ka tuurteen in badanoo ka mida diintiina waa ka tuurteen laakiin innaga waxaynu haysanaa af soomaali wuu iska baran doonaa haddii alla yidhaahdeen markaasaad waxaad diidaysaa inuu isagoo af soomaali jajaban kugula hadlo markaasaad adigu af ingiriisi jajaban kula hadlaysaa saxanka maaha adaa af ingiriisiga jajaban ku hadlaya isagana waxaad u diidaysaa af soomaali jajaban markuu hadlo aad ku qoslaysaa maya ilmahan inaan dhiiri geliyo weeyaan af soomaaligiisa jajaban inaan soo dhaweeyo weeyaan inaan wax u biiriyo weeye inaanan anigu af ingiriisi jajaban kula hadlin weeyaan ilmahayga haddaad rabto markaa waxaynu nimi meel dagaalu ka jiro ninka hindiga ahi markuu waddankiisii joogu dagaalkan ku jiray hindiya 100 af baa lagaga hadlaa 100 diimood baa lagu haystaa 100 dhaqan oo kala nooca la haystaa saa daraaddeed markuu waddankiisii joogay buu qof feejig oo fayow ahaa oo ilaalinaya diinkiisa iyo afkiisa siiga ka yimi indiya halkan markuu joogo waa siig afkiisiina uu ku hadlaya
dabcaabudka jooga indiya ka yimi halkan markuu joogo waa dabcaabud afkiisiina siisi buu ugu hadlayaa muslimka joogaana afkiisii siisi buu ugu hadlayaa isagoo 5 qarni jooga inana kuwaynu keennay baa iminka afka laba garanaynin iyagoo nool aynu la ordayno kuwaynu keennay ayaa waxoogaa ingiriisiyo jaban garanaya umes ingiriisiga ku hadlayaan oo dhamma waa tan suuqa suuqu wax kaga iibsan karaa kuna warwareegi karaa laakiin af cilmiyeed maaha ama af culture xambaarsan maaha haddii culturally loola hadlo ma fahmayo marka kiisiina wuu lumiyey ku kalena ma haysto in aad u badan soomaalida af soomaaliga la liita umamkuna maadaama caynka u arkayaan af dhintay bay ummadaha qaarkood soo noolay yuhuudda ma taqaanaa dowlad maanta yuhuud la yidhaahdo soo ma maqashaan israa'iil la yidhahdo halkan jirta af dhintay bay soo nooleeyeen si ay dadkooda wax ugu baraan oo u noqdo luqada rasmiga ee waddanka af cibriyaa dunida ku hadli jiray kaasaa inta dib loo nooleeyey maanta takhasusaadka daqiiqee dunida qaar ka mida lagu qoraa ka mida jaamacaadka dunida ugu horeeya maanta ku yaala israa'iil qaar ka mida teknolojiyada badh bay dunida hoggaamiyaan iyagoo ku barta maxay af cibri af kumanaan sano ka hor lagu hadli jiray intay dib u nooleeyeen bay waxa ka dhigeen af nool inana mid noolo hadda dadkii ilaahay joogaan bay rabnaa inuu dhinto أنا عرفت في إنجليزي قال إن شاء الله دين تقولها في إنجليزي كسر دقيسني أم قولها في عربي كسر دقيسني سأصادوا هاي سطح كوانا وحكم بفهمه مركز قصلانون بالله قصلا لكن وحكي لك ما قرته وحرس مجي مركز وحي هاي واللغة وضدني مديني وحنا أدو قفكا جوين الصومالية والحيسة وهايسة أنا تكون نقطة وتعشى دتك هذا أفكارنا الساعة كلجر كات قرنا الساعة دقة كات فهم الساعة يسوي لكن بدنا مرة به واي كلجر كودنا ما يقان دقة كودنا ما يقان سيو فكرينا واي أفكار سيدا هدو قفكو أفكار واي أفكار سر رسمية وقرتي دقة كيسات برتي إذا إنه مركز إنه نمدلك كان ملتي كلجراليسم كويالو dowladaha jooga waxay isku dayeen inay dadka isku milaan waxaana isku dayeen inay shaqo abuur sameeyaan waxay isku dayeen caafimaadka inay ilaaliyaan laakiin inaga masaajidkeena iyo gurigeena xilka ahaya afka iyo diinta iyo akhlaaqda iyo dhaqanka iyo suluuga ilmaheena inuu ilaaliyo ilmaha Soomaaliya lagu korinayaa waa ilmo gaalnimaan looga baqayn inta badan waxoogaa akhlaaq xumo baa taala وباهان لغا دغالمو اما ilmaha halkan jooga wax kasta uu luminaya ilaahay markuu ina leeyahay ayuha alladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijara wa mas'uliyat kullukum ra' wa kullukum mas'ulun an ra'iyati waxaynu u baahanay marka waxaynu u baahanay ilmahani inuu istaagi karo oo malakatu tamyiz inuu yeelan karo khayrka iyo sharka intuu kala garto inuu dooran karo goormu gaadhayaa taa inuu khayr iyo shar intuu kala barto haddana uu dooran karo waa goortaad mawaasiinta wax lagu qiimeeyo aad u gudbiso ay ugu horeyso afkiisa iyo dhaqankiisa ay ku xigto ama la mar tahay caqiidadiisa insaanku waa asiiru muctaqidaati wuxuu rumaysan yahay ilaahay quraanka wuxuu inoo soo gudbiyey nin xakiim ahaa oo ilmihiisa la dardaarmaya muxuu dardaarankii luqmaan ee ugu horeeyay muxuu ahaa yaa bunay laa tushrik billah ina ashirka la dulmun cadiim ilmahaygiiyo ilaahay u shirig yeelin shirkigu waa dulmi weyn وإنه المهم برنا ملكة التمييز إنه يشو المه ودنك جوجي حماهنا حمو يقاني سمانا سمو يقاني وأنا وحوفي عنه وهلا وايا ضد كوردن باسيدا ويقاني لكن المه هل كان جوجا وحلنا ليه واحد أضغط حماه تقانا ضد سماها ويقانا إن أنت يرى ما ينك ير اللي بيتبنشر سدحي تبنشر هذا واحد لا ضاي زينة ده سكيل عليه بوي فريند كسكيل عليه كان سكيل عليه مركو سكول كتجانا socially marka ardayga la qiimeeyay waxa la leeyahay asxaab ma leeyahay inan haday tahay boyfriend ma leedahay inan haduu yahay girlfriend ma leeyahay
haddii aanu lahayn macallinka cilmi nafsiga baa loo dirayaa si loo baadho ilmahan cuqdada ku jirta waxay tahay waa ilmo buka agtiisa waayo inuu xorriyadda qaato marka ilmaha kani wuxuu gelayaaba xad la baadho adigu waxaad ku tidhi inan iyo inan aan isqabinin waa zinadu waa mamnuuc inay isdhunkada waa mamnuuc hortiisa isku haystaan kuwa kalaaska la dhiganaya baa is haystaa tvgii baa is haystaa wax walba baa is haystaa wax wanaag baa loo tusay adna waa xumaad ku tidhi idan waa inuu ku qancayn waxaanay xumayeen malakadani waa inay u dhisantay waa inaad mas-uuliyad bari kartaa walidalik ilaahay wuxuu qur-aanka inoo tilmaamayaa ilmuhu markuu 15 jir ama qaan gaadho inuu amaama allahi mas-uul yahay socankaa maaha aakhire in la xisaabayo macnaheedu waxa weeyaan inta ka horraysaa loo traingareeyay inuu mas-uuliyadda qaadi karo saxaabadii iyo dadkii muslimiintii hore gaalay la noolaayeen amoodin mujtamacan muslimka ee soomaalida oo kale inay ahaayeen gaalay la noolaayeen laakiin gaal dhexdeedaa lagu traingareeyo la baray idan intaan caqliga la furan waxa ka horreeya inaad qalbiga ilmaha furatid فتح القلوب قبل فتح العقول oo ah almahabba wal xanaan inuu ilmuhu kaa helo si uu warkaaga u dhageysan karo kalgacal inaad ku beerto ثاني الأمر inaad wax kasta tacwiidiso tababarka inuu qaato salaada maxaa layna yidhi 7 jir ayaa layna yidhi salaada bara inaga dadka badh baa 2 jir iyo 3 jir iyo keena 2 jir iyo 3 jir masaajid la keena maaha 7 jirku waa xaddu tamyiiz macnaheedu waxa weeyaan qof bartay garan kara tahaaradu maxay tahay najaasta see la isaga maydhaa salaada see loo tukadaa ama waxay yidhaahdaan waa qof daakiradiisu fiicantay intuu 6 jirka ka sii yariyay bay yidhahdaan ilmuha daakiradiisu ma fiicna waad baraysaa bidixda iyo midigta la hormaydhaa bidixda la dambaysiiyaa wuu isku qasaya maalina bidixdu maydhaya maalina midigtu hormaydhaya laakiin markuu xaddu tamyiizka gaadho bay leeyihin waa marka aan waxba ka qaldamin daakiradiisuna fiicantay wixii loo sheegay waxa xasuusan karo laakiin waxa layna yiri 10 jir markuu gaadho baa maxay cuqubadu bilaabantaa Soomaha 3 sanadood maxaa jira 3 sanadood oo min 350 ama 60 maalmooda oo 5 lagu dhuftay waa mise waa dhowr kun oo salaadood 5 kun oo salaadood waa trainingkii 5 kun oo salaadood waa tacwiidkii maalmaha hore labuu tukanayaa wuu iska seexanayaa 3 buu tukanayaa maalintuu daalo wuu ka seexanayaa salaadu markay dheeraato ee maqribku goor daba noqoto waa iska seexanaya laakiin waa la soo tababarayay macnaheedu waxa weeyaan 10 jir markuu soo gaadho waxa la rabaa qof trainingkii ka baxay inuu noqdo dabeetana nooc min ciqaab baa bilaabmaysa laakiin haddana weli loo qabsan maayo aakhiro goorma ilaahay xisaabinaya markuu dhowriyo 10 jir gaadhay markuu qaan gaadhay inta ka horreyso dhamme maxay ahayd training bay haddaad inta ka horreyso ihmaalisa ka warraad iska dayso oo markuu dhowriyo 10 mar ayaa tiraa wariya salaada tuko wuxuu tukadaa maada tababarayba markaasuu bilaabaya inuu maalina tukado maalina jaro salaada tukado salaada ilaa muu soo galin trainingkii tirada badnaa noloshu waa sida tan markaa waa inaad qofkan markuu 15 jir gaadho ama uu qaan gaadho waa inaad u traingareysay inaan hadday tahay inay guursan karto guri yeelan karto hooyadu waa inay saa u fakartay waa in loo traingareeyay inaan hadduu yahay inuu maamuli karo guri oo yeelan karo waa in loo traingareeyay inuu naftiisa ku filaan karo qof la daba socdo aan la raadcaynayaan ahayn qof amaama alqaanuuni wa amaama allahi mas-uula qaanuunkana isagaa lagu qaadaya hadduu waxada iyo hadduu wax dilaya haddii wax walba amaama allahi aakhira hadduu tagana maxay isagaa mas-uula soo waxaynu rabnaa feedingkan inagu warwarkan cunadayna haysta waxa ka muhiimsan warwarka barbaarinta haddii markaa aanu aabbaha iyo hooyadu tababarayn sidee bay ilmo u tababari karayaan su-aashu waa taa waxaan idinku bilaabay qoladii iskuulka laga soo saaray shahaadada la siiyey iyo wadaadkii yidhi waa inay dadku qaataan license weliba mar baa jirta aynu ku noolayn dhul dad tajriba leh cilmiga marna tajriba lagu helaa marna class baa laga soo qaataa dad tajriba leh baad la noolayd markaad waddankaaga joogtay ayeeyooyinka eedooyinka habaryaraha
aabaha awowyada waxaan oo dhamay aday carruurta kula korinayeen waana kaa tajribo badnaayeen Soomaalidu maxay yiraahdaan curraafayska islaamaha lagama maarmo curraafays kale maaha wax weeye way ka farsamaya qaasantay ilmuhu markuu ooyaabay garanaysaa waxa haya wuxuu yahay عن طريق التجربة باي كبرتا لحدا سنادود باي سيدان وصو نولاي لحدا كي هو يدي تجربة دينا وي سو قادتay ama kii ayayday dadaan ku darin 100 sano tajriba bay wadataa 100 sano tajribada marka waxay bartay sida qofkan yare soo socda loola dhaqmo iyo kal jarkiisi laakiin kuwana waynu ka soo durgnay xataa tajribada ahaa haystay marka inaan bilowa ama midkoodna shaqo taga midna guriga sii jooga meel cidla ah reer la degan ilmuhuna wuxuu ku nooliyay meel multicultural ah diimo kala gedisan afaf kala gedisan dhaqamo kala gedisan sidee baa farsamo yaqaan aad u noqon kartaa marka ka soo baxa inuu ilmaha ka saari karo iskuulkii uu u baahnaa siiba 6 sano hore 6 ku xigana adiga iyo iskuulku iyo masaajidku sidee baa isu adeegsan kartaa haddii iskuulku idinka caqiido gadisay waxa fiicnaan lahayd in iskuuladina yeelataan haddiiba idinka caqiido gadisnaan noqday guriga iyo masaajidku seebay ilmaha inta iska kaashadaan u soo saari karaan inuu la loolami karo haddii ilmaha afku uu ka lumo masaajidkuna wax ma bari karayo wixii la rabay looma gudbin karayo hadduu diinku ka lumo wixii la rabay looma gudbin karayo ilmuhu markuu qaangaadhka soo noqdo waxay dhahaan 3 wax buu dareemaa 3 waxna wax loo soo tababaray wayna hada waynu mas'uuliyadda dareemaa inuu xambaari karo waayo nolol cusub u galaya jidhkiisii wuu isbedelay codkiisii waa isbedelay siduu u fakarayay waa isbedeshay tajribo buuran ma haysto waa la kaalmeeyaa laakiin waynu mas'uuliyadda la baraa كو حرية بو بلابا وين حريتها لا لكن وين نقطة حرية منضبطة بالقانون وحيل الرميسنا قيمها يدغن كي قانون كي شرعي قيمة تكون ضابط سنين نقط وحوش علي وحول با أمرين أنو كو قادنا إن لقنعيه ويلد اللي يرابا النبي محمد ويما يسوي مجلس كفردية وحوكو يدي إلهي رسول كيسيو أنا وحن ربابو يدي إن لا يفصحوه حق الله فصحيها ولا أنا وهب لها إن أنا سكر عباد دوني يعني الزنا ده لا يوكل هذا بقوله فسح مربع كورنا دوي مكينا نتو هالكين يما تو يرادو ورنا وحن ربا إن لا يفصحوا الزنا ده لا يفصحوا أما هو إنه قيل يلهين أما هو ياب الهين سمها نبي يقول مركو عين كاي يردك يابين عليه الصلاة والسلام وحكوا يقولوا أدنو سودو ويل إلا إن كيسدي له احترامي النبي هرتي سالة فريسي يبتني النبي محمد وهر فرست هيدا محاتري هيدا محن رباه إن لا يفصحه أنا وزيرنا فصحوا الرباه بقول إلهي رسول كيسيو وحنا بكو يري هو يدا ما لا تعشى زينة وحارانها صبينا لما ورد هل يقول هو يدا ما لا تعشى رسول ما إلهي رسول كيسيو هو يدا عندنا كسينيساته مرة رباه يبتني حكو يري دتك كلنا دمر كلنا قاربي هو يوينو أنا ينا لا تعلي ولا شام لا تعشى ماي إيدو هبري أنتي كو هريرسناي دمر أيو نبيكو مد بمرويدي عليه الصلاة والسلام مد والبا وحيدا لما ربو يقول دمر ككلنا انتاسي رقبي إيدي هبريري كانوا ينيقون لما تعلى سلوتشكو نبيكو لها الله وقنعنا أيوه كدبو نبيكو دعي هاي علماء التاريخ دوريا يراهدان إنكي قبل دم بمئيجين يعني ما حنوجه هذا فتح القلوب باكهر ريان تقفك قلبي سهنتا كهر ريان العقل يسقن عصا لكن مركز دمبنا وحوب هاي مركز دادا سوق قالوا إن عقليا قنعين كريس إنه وحنو ندوري توانشين أنت تصاك حيسود دكان كيسابات لهذا مرضان قادم كيس كل ما يتبان قادم كيس وروح سمر ما هتور تقاضو أما أنت هذا جوري دكان كتكتو وشاري يسروال سوي بيسو هذا حلا كويس أن كوسوي بيقعد من السكولة مكون دون مين نقدر وربل وحى حندي ما أنتوا لما نكوسوي بيننا بعد له سحمها
waxa sax ah inaad kaxayso oo dukaanka geyso laakiin tajribo ku filan ma haysto aad wax u sharaxdid marka inaad tiraa maryaha noocaasi way fasaqayaan kuwa haddaad maalinta horeysay maydhmayaan kuwa kani qiimahoodu iyo isuma cuntamaan qualitygoodu wuxuu yahay kan inaad qofka qancin karto dooritaan gelin kartid halka aad rabto inaad ku tawjiihin kartid marka tiraahdaa baaniga waxa ila quman ka ama ka inaad qaato way kaasina waxa isku fiican kaasina waxa isku fiican haddaad qanciso marka kalsoonida hore idinka dhaxaysayna ay wanaagsanayd oo kalsoonida hore haday xun tahay yani hadduu ku arko inaad waxba garanaynin oday reer miyiga inaad tahay dee xogaa dhegaysan maayo saacada ma hadduu ku arko inaad dadka ka dambayso oo aan train gareyn waxba ka dhegaysan maayo laakiin hadduu ku arko valueska iyo qiyamka sida wax ku ool inay yihiin oo ku ixtiraamaya midna way iskaba jirtaa sideedaba oo marka uu yar yahayna dunida ilmaha waxa uu la weynaa bihii hooyadii dabeetana inantuna inay hooyadeedu ekaato maryaheeda gasho kabaheeda gasho maradaad meel dhigtabana ka yaraad dhashay isagoo isku jufay baad arkaysaa abaaba iska dhigaya laakiin markuu soo weynaadee dhowr iyo 10 jir soo noqdo odaygii la dheeraa dherarkiisa uu soo gaabtaa salaantana way soo gaabataa isna wuu soo karayo dee wuu isku dherariyaa dad kale oona wuu la dhaqmay bulsho kale oo ama ka yara aqoon badan ama ka lacag badan ama ka tan badanna wuu la soo dhaqmay marka horta dherarkaagu intii hore uu ka soo gaabtay waa inaad ku xisaabtantaa oo marka ay yaryaraayeen sidii aad awaamirta u siinaysay u lahayd sidaa yeela arrinku maaha qofkii wuu soo koray ha soo koro mas-uuliyadna waa inaad dareensiisaa nooc min alxurriyana waa inaad dareensiisaa tawjiihaadna waa inaad siisaa markaa aniga waxa ila fiican kan baa waxa igula fiican kana waxa sugula fiican wax sharxays aad qancin karaysid inta kadib ayaa waxaan leenahay al-i'timaadu cala allah ilaahay inaad u tala saaratid أنبيادي محيكو دعينيس نبي إبراهيم ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء حولها النبي إسماعيل مركو لسعودي ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك واصلح لي في ذريتي مؤمن في سورة الأحقاف إلهي سبحانه وتعالى مؤمنين عباد الرحمن ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما دعاء إلهينا إناد بديسيت قلوبت waxay ku jirtaa gacanta rabbi haddaba waxaan ku soo koobayaa haddiiba aynu nimi dhul multicultural waxa weeyaan dhul afaf badan diimo badan dhaqamo badan ay meesha yaaliin oo iska soo horjeeda waan isku wax qiimaynaynin asaad rabto inaad ku noolaato oo dad ku korsatid waa inaad yeelataa awoodii u dhigmi lahayd inaad maxay bulshada iyo dhaqanka iyo afka inaad ka hortegi kartid oo ugu horeyso afkiina inaa ilaalisaan waraf ingiriisi maaha cilmi ingiriisi cilmi maaha af walba dadkiisa cilmi ka dhiga cilmigu waa wax lagu guro afafka erayga waa la ballaadhiyaa waana la yareeyaa laga yaabaa haddaan nadka gashaan muxaadaradan kaga warramayo luqada inay cilmi tahay inaanay cilmi ahayn iyo af soomaaliga inaan laga fiicnayn aan ku tilmaamayno laakiin waxaan uga jeedaa un afka waa kow inaa ilaalisaan labana waa inaa muctaqadkiina ilaalisaan ilmahani maalin kasta iskuul buu tagaa iskuulka ilxaad baa lagu dhigaa wixii la doonaa lagu dhigaa waxa waa inaan hadhow ka shubi karnaa laakiin haddiiba aynan laba hadli karin si aad uga shubi haddiiba aynan iskuba af ahayn wadaadka masaajidka jooga haddaana iskuba af ahayn say isu fahmayaan يعني ilmaha iskuulka tagay shubahaat ilxaada مثلا atheism waa courseska ugu badan ee iskuulada iyo lagu dhigo si indirect iyo jaamacadka iyo waxa kan shubahaadkaasi ilmaha markuu soo galo yaa ka saaraya isna iskuma filla wadaadka masaajidka jooga isafgaran maaya adiga isafgaran maysa yaa ka saaraya markaa waa inuu diin laawan noqdaa markuu koro
afkani waa wixii diintan sidee lagaga saarayay haddaad ii keento isagoo af soomaali garanaya ay shubha nooca ku saabsan insha allah waan ka daweyn karaya laakiin af kale waan kaga daweyn karaa ma jiro af kale oo intaanu isku fahamno uu kaga dawoobaya ma jiro adna waxba kama daweyn kartid iskuulkii loogu dhigayna waad ku sii wadaa oo lacag baad weliba kaga sii bixinaysaa subax walba intaad dar u sii xidhaa baad leedahay soco oo sii tag iskuulka ayaa jaamacadda aba tag idan ayuha alaxiba maxay carabtu gabaygoodii muxuu ahaa intuu laba diblo u xidhay buu badda ku riday markaasuu yidhi war hooy ha qoyin caqliga may gashaa qof intaad laba diblo u xidho badda ku tuurtid oo tidhaahdeed maxay iyaaka iyaaka waxaan kaaga digayaa adiga iyo qoyaankaan idin kala digaya haddaad tidhaahdo يعني ilmaha ilaahay baa u abuuray inuu wadadaana qaadi karo laakiin fi ahsan taqwiim baa ilaahay u abuuray khayrka inuu maraa adna shay baa lagu marsiin karaa laba professor oo iska soo horjeeda hadday helaan ka khayrku raacaya qulaamkiisi xiroola iyo raahibku heleen iyo muraaca laba cilmo kala gadisan baa lagu waday midna gaalnimo yahay midna islaamnimo yahay laakiin hadduu ka islaamnimadu abkam yahay ka waran aflaa yahay islaamnimadu hadduu aflaayi waanay tawaasuli karin ba xidhiidhi karin ba ilmaha iyo waalidku ilmaha iyo imaamka masaajidku ilmaha iyo sheekhu haddaan xidhiidhba ka dhaxayn karin aanay wada sheekaysan karin uu culays dareemayo intuu adiga kula joogo sababtu waxa weeyaan adaa dayacay afkiisii cidda afkan laga rabay inay bartaa waa adiga cidda la rabay guriga inaana af soomaali mooyaane wax kale lagaga hadlayna waa adiga diintiisii inay dayacanta cidda u sababkii markaa waa adiga waxaynu u baahannahay war cilmi weeyaan sida ilmo loo kabciyo lisanska qaata gaal iyo muslimba waad ka bara muxtawaha kala gadisan muxtawo waa maxay yani kuugnimadu waa farsamo soo maaha laakiin xaraan iyo xalaalba waad karin kartaa soo maaha waa farsamo kuugnimadu ninka kuuga ah haddaad wax xalaala u dhiibto wax macaan buu ka soo tuuraya doofaar iyo in xaaraana haddaad u dhibtana wax macaan buu ka soo tuuri karaa dhadhanka wuu macaanayn karaa niman farsamo yaqaan ahayn haddaad xalaal u dhibto muxuu ku siinayaa buushun buu ka soo tuuri de waxaan dhadhan lahayn inkastoo wuxuu walaaqayaa xalaal ahayd laakiin qofka la siinayo kama degayso inuu waa xalaal isaga cuno mooyaane dhadhan male lagu cuno idan markaan idin leeyahay wuxuu waa cilmi waxa weeyaan wuxuu waa farsamo ka mid a farsamooyinka aadanuhu barto pedagogy waa farsamo ka mid a farsamooyinka aadamuhu barto sida wax loo kobciyo wax loo barbaariyo dadka badhna tajribadii aadanaha caadiga ah bay isku siin jireen dadka aan wax qorin libaaxu midkiisa yar libaaxun buu aakhirka ka dhigaa soo maaha laakiin keligii baa watee daayarra kuma daro isagaa wata ilaa intuu libaax ka noqonayo isagaa tababara meel kasta kala booda farsamadaasoo ka bartaa siduu u daba socdo waxa ka bartaa adigu waxaad rabtaa inuu libaax noqdo daayarana waad ku daraysaa oo dee ma wadatid cid kala wada idan can ariiqi tajriba markaa kuma qaadi karo maadaama tajaarib kaloo badan uu helayo wuxuu u baahan yahay can ariiqi tacliimna in lagu siiyo marka kan muxaakaa qura iyo talqiin quri kuma filla ee wuxuu u baahan yahay farsamooyinkii waxbarashee tirada badnaay oo dhan wasaa'ishii la adeegsaday tirada badan oo dhan in la maro marka aniga darsigan oo dhan dantan ka lahaa waa hal un inay fahamtaan inaad fahamtid bini aadamku inuu xoolaha marka hore ka qaalisan yahay oo waan shaqaynayo waan mashquulay inaanay sax ahayn marka labaadna inaad ii fahamtid tarbiyadu cilmi la bartay inay tahay oo haddii aynu baranno ilmahan ku tijaabinana inaynu ku guulaysan karno walow aan ku nool lahay meel qaldan haddaynan farsamadaa baraninna inay eedo inagayna raacayso mas-uuliyaddu inay inagayna raacayso ilmahana uu geed hadduu meel ka baxo uu qalloocdo ma ninkii beeray baa la canaananaya mise geedkaa la canaananaya soo maahay ninkii beeray ee toosin waayey ee baalkan hagaajin waayey geed kasta waa la toosin karaa geed kasta meel kasta uu ka baxo waa la toosin karaa haddii uu farsamo yaqaan haylo haddii laakiin halkaa inta laga baxo dabaylaha loo daayo ay dabayle xaggaa u wado oo geed kale ku baxo laantaba qabsado deetana xaggaa u qalloociyo dee geed qallooca baxaya
ilmaha kan haddaad badda dhigtay oo waxaasoo dhamme ay ku socdaan najaasada kugu duusha hadday yartahay maxaa ku filan koob yaroo biyo ah soo maaha laakiin haddii qasabad najaasi kugu socoto ka waran waa intee dhowr qasabadood oo biyo la raaciyaa si ay u tahaaroobi karto meeshu haddii kalema tahaaroobi idan halkan juhdigaynu carruurta ku bixin jirnay xaggaa markaynu joognay mid ka badan baynu u baahanay marka cilladu maaha inaynu ooyno oo nidhahnaa carruurtii baa luntay carruurtii baa afkii ka lumay carruurtii baa war waxani waa shaqadeenni iyo innagaa shaqadeenni kasoo bixi weyne aan isku qancinno marka koowaad waa marka labaadna keli kagama baxayne aynu ururnimo iyo inaynu midowno isku qancinno waa marka saddexaad inaynu baahida dhulkan aynu joogno inaynu u midowno iskuulladeenna inaynu inagu yeelanno masaajideenna yeelanno xaafadahaynu degeenna yeelanno dad jira inaynu noqonno dad jira oo dad hayn kara inaynu ahaano haddii kale waxaad noqonaysaa warshadaha ugu fiican ee bini aadamka soo saara laakiin dad kala beeriya imka Yurub iyo North America iyo maxaa dadka loo qaataa way dhali waayeen xaqiiqo jirta way dhali waayeen waxaana la hubaa inay dawladahoodu burburayaan sida ay iminka yihiin hadday ku socdaan waa sida iyagu buugaag iyo research iyo TV wax walba ka soo daayeen waayo ma jiro waddan nin cadi ku nool yahay waxay yidhahdaan in dadku sii jiro waa 2.1 inuu ratio gaadho 2.1 macnaheedu waxa weeyaan boqolka qoys boqol nin iyo boqol gabdhood soo boqol qoys maaha waa 200 qof labadaa boqol qof bay yidhahdaan ugu yaraan waa inay dhalaan 210 qof markaasuu dadku joogto noqon karaa hadduu intaa ka yaraado dadku hoos buu socdaa talyaanigu hadda 1.3 buu marayaa that means labadii boqol qof ee talyaaniga iyo 130 bay dhalaan labadaa boqol markay dhintaan maxaa bedelkooda jooga 130 wadannada qaar 1.25 bay marayaan wadannada Yurub ugu sarreeya 1.8 bay marayaan 200 kastoo dhinta 180 qof baa bedelaya that means tiradii ay dagaalkii labaad ee dunida kaga baxeen hoos bay u sii socdaan ciwadkii markaa wadannadani way burburayaan bay go'aan ku qaateen haddaan dad la helin dadkiina feminism group iyo idea inu ka dhaadhicno dhali waaye in ilma dhalaan dhib bay noqotay mid nooloo ordaya iyo mid aan shaqo kale inoo qabanay dhala waa inaynu keennaa baa la yidhi marka warshadaha dhasha ayaynu nahay ee Yurub la geeyo soo sama ogidin warshadaha soo dawladdu ma laha warshad qalabka u soo saarta dadka warshada soo saarana Soomaalida ka mid ah 6 dhal 7 dhal dabeetana hal la gurto waa maqashaan carruurtii waa la qaatay kuwa maaha kuwa aan qaadanina dee waa hadiya aynu soodii u siinay way kori uuna way ka mid noqon akharka way koriya way ka mid noqon marka waa inaynu kala doorannaa inaynu noqono warshadihii dalalka kale dhasha ay u haysteen carruurta u dhalaya kadeedka iyo dhasha watay ee markay koraanna dadka kale ku biirinaya iyo inaynu noqono dad jiraya oo af iyo dhaqan iyo diinba raba inay jiraan dadka kalena raba inay bedelaan oo diintooda gaarsiiyaan dadka kalena raba inay bedelaan oo diintooda gaarsiiyaan doorashadu waalidka u taala carruurta maaha waxba yeena carruurta maaga carruurtii baa halowday carruurtii baa jeelasha ka buuxda waa sax Yurub markaad joogto tiradaan ka nahay iyo tiradaan jeelasha ka nahay wax inaba isu dhigma maaha bulsho ahaan tirada 1% kama nihin jeelashana percent fiican baan ka nahay حتى ميلها والدي إنه بيرسنت في عن كناي ويا مركا يدوخين إنه لشينا قاري ويا بابو في سكوة دعاي وضواشه ترى ده الدرجة يبيس بيرسنت في عن كناي وحاصر ده من محي شيئا عرورتي بحرماتي ميا وحي شيئا مسؤولية درده إني والدين جهلي والدين تايستقارنا وددالين لكن ودقل دبو لددالي isnadhi may carruurna ma hayo inina marka horeba mas'uuliyadda may qaadin oo xilkaas may saarin haddaba haddaan rabtaan inaynu qaran guurana daan halkaa ka wadno dadkana u dhallo guurkana badino carruurtana badino nin iyo 8 iyo 7 u dhallo 4 dumarna guursano laakiin dad kaleenu badin marka Soomaaliya joogteen laandheera sheeganayeen baaba la qaato tolka baad badinaysay إمك تلك لا تبادريسا والله تلك لا تبادريسا إن أنا تلك أنا عين عطا لا تبادريسا
أنا رسالة دي دوانتا وأروى وحبا إذا كان مقانه رادية والسلام عليكم